الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku dhex jirnay mabaadi'dii guusha lagu gaaray waxaynuna gaarnay kii lixaad oo ah khayaalka ama waxa la yiraahdo ingiriiska lagu yaqaano imagination ama af Soomaaliga la oran karo suuraysi. waa muxuu u baahan yahay suuraysigu? suuraysigu waxa weeye horta suuraysigu waxa weeye inaad aragtid wax la samayn karo oo dhici kara iyadoon dadka badankiisa iyo waxaas ayan u jeedin laakiin adigu aad maskaxdaada ku suuraysanaysid si aad ugu wanaagsanaatid khiyaalka ama suuraysiga. waa inaad leedahay tabar maskaxeed oo aad wax ku suuraysan karaysid. wax kasta oo aynu haysano maanta adduunyada maalin bay waxay ahaayeen wax qof suuraysanayay oo maskaxdiisa ku jiray laakiin dadku ayan arkayn. mathalan dadkii jeclaa inay duulaan mathalan oo diyaaradaha oo iska soo tuuri jiray buuraha waxay suuraysanayeen in duulimaad dhici karo sida shimbiraha inay u duulaan laakiin dadkii waktigooda la noolaa way la yaabanaayeen waxa dadkaanu ay samaysanayaan. Thomas Edison ninka la yiraahdo Thomas Edison iyo raggii kale oo aadka wax u alifay faraha badnaa dhammaantood waxay ku fiicnaayeen wax suuraysiga. tijaarada sidaad ugu najaxdid waxaad u baahan tahay inaad wax suuraysatid oo mathalan xaggee buu noqon doonaa suuqu suu noqon doonaa haddii muxuu ahaa dowladahaasu soo galaan ama tijaartaasu soo galaan ama shirkadahaasu yimaadaan suuqi soo noqon doonaa ma ka baxaa ma ku jiraa waxaasoo dhan waa suuraysi ama wax imagination ama wax la yiraahdo khiyaal. marka waxaas waa khiyaal baynu inagu nirahnaa ceeb baanu haysanaa laakiin mar walba khiyaalku ceeb ma aha. khiyaalku hadduu ku horseedayo inaad wax aliftid inaad waxaan jirin oo laakiin dhici doona aad suuraysatid waxa weeye waa wax aada u wanaagsan. mathalan aan ku soo qaadano khiyaalka nin ayaa maalin wuxuu yimi meel jardiine ah oo xadiiqo ah oo garden ah ayuu yimi meeshaas oo dad badan ay ka buuxaan. markaasuu meel yar oo wuxuu arkay dhexda ku taalla wuxuu yidhi meesha tan haddii laga sameeyo buufeed ama cafeteria ama makhaayad yar oo shaha laga cabo iyo waxyaalaha macmacaanka iyo waxyaala noocaas oo kala soo laguma faa'iideen. madaxiisay ku soo dhacday laakiin dadkii meesha joogay isaga unba arkay. markaasu wuxuu ka sameeyey meeshii makhaayad yar ama buufeed wax la yiraahdo ama cafeteria. ninkii muddo markuu ku shaqaysanayay ayaa waxa u baahatay shirkad ayaa u baahatay. ninkii bay u timi lacag aada u fara badan ayayna kaga gadatay muxuu ahaa buufeedkii isaga ahaa maxaa yeelay waxay rabtay inay ka samayso wax weyn oo eedada kan faraha badan oo imanaya jardiinada ama xadiiqada imanaya ay ma garanaysaa kaga shaqaystaan. sidoo kale mathaal waxaan usoo qaadan karnaa shirkadda Nokia la yiraahdo, shirkadda Apple la yiraahdo, shirkadda la yiraahdo muxuu ahaa Samsung oo intuba telefoonada sameeyaan. markii hore waxa ugu horeyn jiray Nokia laakiin Nokia suuqa waa ka baxday. waxay uga baxday waa maxay? waxay suuraysan kari weyday waxa dadku ay mustaqbalka u baahan doonaan. marka saa awgeed ayay wax suuraysigu uu faa'iido u leeyahay tijaarada wax samaynta waxaasoo dhan uu maaragtay oo u fiican yahay. khasab maaha waxaa suuraysanaysa inay u jeedaan meesha dadku u jeedaan ee marmarka qaarkood wax dadku ayan suuraysan karin oo nacayaan oo ay leeyihiin ma jirto ayaad suuraysanaysaa oo lagu najaxaya. haddaan soo qaadano bahasha la yiraahdo kite-ka ama abatayda bahasha la yiraahdo duusha uma duusha dhanka hawada ee waxay u duushaa dhanka hawada meesha kasoo horjeeda. duulintaankooda wuxuu ku yimaadaa markay xagga hawada ay kasoo horjeedo. marka mar walba khasab maaha
inay dadku dhankay u jeedaan uu noqdo suuraysigaagu. dadka dembiyaalka baara oo matalan detectiveska nimanka loo yaqaano ama khubarada dembi baarayaalka ah waxay u baahan yihiin suuraysi. maxaa yeele waxaa la rabaa markii ay wax calaamada helaan inay suuraystaan qofkii meeshuu ka soo galay, suu sameeyey, suu waxyeelay, inay madaxooda ku rogrogaan oo sawirtaan. marka marar badan waxay soo saarayaan iyagoon ogeyn markay wax suuraystaan. markaad guuldaraysatid oo wax intaa samaysid khiyaal ah mathalan aad wax suuraysatid wixiina ay sidii noqon waayaan, ha ku niyad jabin. taa lama yiraahdo fashal ama khasaaro lama dhehee, waxaa la yidhaahdaa khasaaro oo kooban oo kuu horseedi doona berri inaad saxdid khaladaadkii aad gashay si aad u noqotid mid guulaysta. marka mar walba waxyaalaha dhibaatada oo ka hor imanaya ma wada xumo marmar bay faa'iido kuu yihiin, laakiin waa markii aad wax ka baranaysid. waxaa la yidhaahdaa ingiriisku waxay yidhahdaan blessings in disguise. markay leeyihiin yacni waxay leeyihiin waa nicmo hagoogan, shay aadan filayn baan wuxuu kuu soo dhibaato baa kor ka yahay, laakiin gudihiisa waa maxay? waa khayr. wacasa an takrahu shay-an wa huwa khayrun lakum buu yihi ilaahay subxaana wa tacaala. wax inaad nacdaan baa laga yaabaa isaguna uu khayr idin yahay. marka marmarka qaarkood waxaad is leedahay waa dhib, ayaa laga yaabaa inuu ku noqdo furihii aad ku horumari lahayd. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad wax suuraysatid si aad markaas kabacdina intaa keliya ku ekaan mayside, suuraysigii shaqana waa inay la socotaa, go-aan gaaridna waa inay la socotaa. ilmaha la koolkooliyo oo mudalaciinta carabta ay u yaqaaniin oo laga badbadiyo, waxay u baahan yihiin marmarka qaarkood say u yeeshaan kuwo ay u noqdaan kuwa suuraysi leh oo go-aan leh, in lagu khasbo inay naftooda maareeyaan oo marmarka qaarkood dhibaatooyin ay la kulmaan say markaa wax ay uga bartaan. waxaa jira wax la yidhaahdo af ingiriiska cause and effect, ama sabab iyo wixii ka dhalanayay, waana isleeyihiin. ma dhici karto geed qodxaya badan intaynu beeranno inaan maango iyo moos iyo babaay inaan ka guranno. waxaa noo soo baxaya waxa uu noqon doonaa uun wixii aan beeranay. marka cause and effect baa la yidhaahdaa. dadka aan khiyaalka lahayn baa waxay rumaysan yihiin ama khuraafaad ka rumaysan inuu halkan intuu biyahan wax ku dhufto inay wax uga soo baxayaan dahab. taasuna ma ay jirto. sidoo kale waxaa dhici karta inaad marmarka qaarkood ka faa'iidaysatid suuraysi qof kale suuraysigiis ama ka badan 2 suuraysi iyo 3 suuraysi inta isu geysid inaad wax kala soo baxdid ayaa laga yaabaa. taasuna waxay ku imanaysaa inaad dad fara badan la sheekaysatid, inaad dad badan fikradahooda qaadatid. khasabna maaha fikraddii inaad sideedii u koobigaraysidoo aad u isticmaashide, iyadii baad waxaad u bedelaysaa si ku anfacaysa. masalan fikraddu hadday ahayd ama khiyaalku hadduu ahaa geel, waa ka bedeli kartaa gaari, waa ka dhigi kartaa, ama waa ka dhigi kartaa wax kale oo soconaya ama wax saas oo kalea. dadka wax iibsha aad bay ugu baahan yihiin inay leeyihiin suuraysi. maxaa yeele waxaa la rabaa inuu suuraysto qofkaas uu wax ka gadayo waxa uu rabo, qofka uu wax ka gadayo waxa ugu jawaabi doono, qofka uu wax ka gadayo waxa uu weydiin doono. marka waa inay jawaabihii ay diyaar u yihiin. marka wuu u baahan yahay inuu wax aan meesha online oo soo socda uu suuraysto. dardaaran walaal, si aad u guulaysatid oo nolosha aad noqotid mid ku guulaysta, ha fadhin meeshaada suurayso waxyaalo ku wanaagsan oo aad ku liibaani kartid ama shaqooyin aad ku liibaani kartid. mathalan waxaa timi meel waddan aadan weligaa joogin, waddankii baad waxaad ka aragtay ama indhahaaga ku soo dhacay maskaxdaada fursado meesha yaalla oo in dadkii arkayn. marka taasoo kale ma aha inaad la seexatid ama inaad dad kale u sheegtid, waa inaad adigu ka faa'iidaysataa.
suuraysigu wuxuu muhim u yahay inay maskaxdaadu korto, inay maskaxdaadu noqoto mid aqbalaysa fikrado badan. suuraysiga waxyaalaha kugu saacidaya waxaa ka mid a inaad wax badan akhristid oo aad inaad wax daawatid, inaad ma garanaysaa dad la sheekeysatid adiga kaa caqli badan, inaad khibrado dad kale ay isticmaaleen aad markaa ku suuraysatid, waxaad ku xalisid mushkilado ama dhibaatooyin adiga ku hortaagan. marka ha u malaynin mar walba hebel waa khiyaali marka laleeyahay inay wada xun tahay. khiyaal waxaa jira wanaagsan iyo mid ma garanaysaa riyo maalmeed. riyo maalmeed looma baahne, waxaa la rabaa wax la fulin karo, wax dhici kara, wax socon kara, mashruuc luga leh oo luga u ku socdo leh. intaas ayaan warkay kusoo gabagabeynaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.